Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwadii ugu dambeeyay wadahadaan oo kale ka daawataan YouTube-kan maqal wareedka intuu soconayo hadduu eebeedmo macluumaadka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisad culus oo ka taagan bay kadib dagaal ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo intaanu ku soo gudbin qodobkaas oo faahfaahsan fadal maqaalka laga saar oo share garay oo gey cida u baahan waa 22 bisha shanaad ee May 2026 aynu ku bilownay saaxiibayaal wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegay in xiisad colaadeed ay ka taagan tahay duleedka magaalada Baydhabo kadib dagaal culus oo xalay ka dhacay halkaas ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyad la sheegay inay taabacsan yihiin madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Cabdicasiis Lafta Gareen dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka Iidow Dhagoole oo dhaca waqooyiga magaalada Baydhabo halkaas oo ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ila wareegyada deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in iska hor imaadku uu saacado badan halkaas ka socday isla markaana uu sababay khasaare iyo dhimasho soo kala gaaray labada dhinac war-saxaafadeed maanta ay soo saartay wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar qorsheysan oo ay ku soo qaadeen magaalada Baydhabo ciidamo ka amar qaata madaxweynihii hore dhacay ee Cabdicasiis Lafta Gareen wasaaraddu waxay sheegtay in maleeshiyadka weerarka soo qaaday ay ku tilmaantay shabaab cusub iyaga oo ujeedku ciidamadu daacadda u ah Lafta Gareen ay yihiin sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in howlgalka lagu dilay xubno ka tirsan maleeshiyadka isla markaana la qabsaday hub iyo saanad ciidan waa sida warka loo dhigay si kastaba ha ahaatee maamulka ayaa wax faahfaahin aan ka bixin khasaaraha dhinaca ciidamada ka soo gaaray halkaas dagaalka oo socday saacado badan kana dhacay deegaankaas sida kale mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale ugu baaqay waalidiinta iyo ehelada dhalinyarada dagaalamaysa ee ku sugan furimaha dagaalka in ay ka soo saaraan goobaha ay ku sugan yihiin iyaga oo u ballan qaaday in haddii ay soo dhiibaan cafis loo fidin doono ayna maamulku u fidin doonaan cafis haddii ay soo dhiibaan waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal Baydhabo oo markaa dagaal foolanaysa bal wixii ka soo cusbanaad maqaalada kale ayaad ku daawan doontaan haduu ee baydne fadlan maqaalka leega saaro share garay